بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. dhammaan bahda saxaafadda ee halkan ila joogta waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. saaka waxaan kiin isugu yeeray arrimo ka soo cusboonaaday siyaasadda Soomaaliya iyo Somaliland iyo dhibaatooyin nabadgelyo darro ah oo ka abuuran goboladaas Sool, Sanaag, Highland, Cayn oo baryahan dambe dhan caado noqotay. ayaan doonayaa inaan dhowr qodob ka iraahdo. marka ugu horeysa siyaasiyan waxaad ogaataan ama la og yahay gobolada dadweynaha ku dhaqan inaanay marnaba la gelin heshiis ka mid ama qayb ay ka noqonayaan maamulka Hargeysa ay ka noqonayaan ma ay dhicin mana jirto. dadweynaha ku dhaqan goboladaasi waxay aaminsan yihiin midnimada Soomaaliya oo ay dad badan kaga dhinteen, dhibaatooyin badan u soo mareen, taasoo aanay dawladda federaalka ayna ishii ay mudnaayeen ama gacantii ay mudnaayeen aanay marnaba ku eegin iyagoo dhanka kala dhowraya. dadkaasina waxa ay dhibaatooyinka ku mutaysteen waxa weeye ilaa iyo waagii dawladdii dhexe burburtay midnimada Soomaaliya ayay u taagnaayeen ilaa iyo xilligii gumaysigiina way wadeen. waa gobolada kaliya ee xiriiriya ama santarka u ah midnimada Soomaaliya. taas waa taas sida awgeed dadweynaha ku dhaqan goboladaasi marnaba kama mid aha ama kama mid noqon doonaan maamulka Somaliland la baxay ee Hargeysa iyo Burco ku eg. qodobka labaad waxaan ugu yeeraynaa maamulkaas isaga ah ciidamada uu hadda ugu dambeyntii soo dhigay magaalada iyo beduleedkeeda kaasoo kuwaas oo lagu khalkhal gelinayo ama lagu cagajuglaynayo ama la rabo in lagu caburiyo sida caqligiisu uu sheegayo goboladaas iyaga ah gaar ahaan gobolada Sanaag iyo Highland. waxaan ugu yeeraynaa inuu ciidamadiisa si degdega ugala baxo aagga uu keenay. dadka dariska ah ee ceel wadaagta iyo daaq wadaagta iyo oon wadaagta ee dariska ayna waxaan u sheegayaa nabadgelyadii inuu rabo inuu cirka ku laalo ninka madaxda ka ah maamulka Hargeysa, taasoo aynu wax kale aynan haysan goboladaasi ay haysteen ama dadkaas meesha wada degan ay haysteen nabadgelyo oo kaliya wax horumarna aanay haysan. sidaa awgeed waa inaad ka digtoonaataan ishiin furaata dhegtiina taagnaata kana hadashaan inuu ciidamada uga noqdo fadhiyadii uu ka keenay. intaa haddaan idhi waxaan rabaa inaan kelmad iraahdo dawladda federaalka waxay sheegtay inay wada hadallo la gelayso nimanka la yiraahdo Somaliland iyo Soomaali ahaan. isweydiintiisu waxay tahay Somaliland yaa waay? Somaliland ma habar jeclo iyo habar walba ma beesha dhexe qorada loo bixiyay oo reershii saxaaqba ma qabaa'ilkii degi jiray xilligii gumaysiga Somaliland oo Ingiriisku gumaysan jirayba yaa waay? horta yaa lagala xigay yaa lagala macaamilaya? Somaliland waa teeway taa laftigeedu in hoos loo eego dawladda federaalka ee hoos u eegto arrintaas iyo isla markaana ay kala gargarayso maqaamka iyo habka ay ku hagayso wada hadalka Soomaaliya iyo cidda magaca sheegatay ayaa loo baahan yahay. waxaa loo baahan yahay in waxa la yiraahdo xalaal iftiin baa la qashaaye in arrinta xoogga laga wada yahay loo wada gola joogo goob joog loo noqdo dadkaasi aanay dhicin inuu muuse mar labaad daaqada ka soo dhaco oo uu yiraahdo dawladda federaalka waa heshiis la gelaya iyagoo dadkaasi ay meesha ka maqan yihiin siyaasiyiin ahaan iyo shacab ahaan iyo dhaqan ahaanba ay ka maqan yihiin. waxaan leeyahay waa in saddexda qayboodba la tixgeliyaa oo dhaqanka cid ka joogta shirkaas cidda aqoon-yahanka oo academically u garanaysa waxana ay cid ka joogtaa golayaasha dawladda dadka kaga jiraan ay cid ka joogtaa. iyadana intaasaan leeyahay. waxaan kaloo ku laadayaa waxa weeye dadka midnimada difaacaya kaalinta ay mudan yihiin hoos waaga baan idin leeyahay. waayo dawladda dhexe dadka dhan bay mas'uul ka tahay, laakiin waxay mas'uul kaga tahay inay dadka iyo dalka iyo dadku ay mid yihiin. wixii midnimada aaminsanna in gacan la siiyo waa waajib. intaa haddaan taa ku dhaafo waxaan ugu yeerayaa dadka shacabka ee degan goboladaas xilli kala guura la galay xilli maxaan ku raahdaa dabaluda la joogaa inaad iska difaacdaan gardarrada iyo ciidamada iyo maxaan ku raahdaa waxyaabaha la soo duldhigayo oo aad u midoobaan ayaan idinku yeerayaa. waxaydan geeyeen in la idin marsiiyana way
weligeen inay yeeshaan maaha wadaagtiinu goboladaasi waxay lahaan jireen maamul iyo madax ingiriiskiiba ka horjeedeen oo la dagaalamayeen waxay lahaayeen madax soo jireena mararka qaarkood waqooyiga wax laga weydiin jiray ingiriisku markuu ka tegayna madax dhaqameedyadooda cid ka mid a ayuu dhulka uga tegay qoraalkeedina waa la hayaa waxa weeye arrintaa iyada ma geyno waa inaad ka dagaalantaan waana inaad ka diyaar garowdaan waana inaad difaacdaan dalkiina naf iyo meel waxa aad leedihiin oo dhan aad gelisaan dadka gudaha jooga iyo dadka dibadda jooga arrintaas waa ka siman yihiin waana ugu baaqayaa inay fadhiga ka kacaan gacan siyaasadeed iyo gacan difaac iyo gacan dhaqaale saddexdaasaana loo baahan yahay saddexdaaba inay aad iyo aad wax uga qabtaan qodobka ku xigaayo waxa weeye qurba joogta u dhalatay goboladaas waxaan ugu yeerayaa inay fadhiga ka kacaan ayayowstii dagaaladii ayayowstaa la joogaa soomaalida waxay tiradaa waa ayayowstii inaad maanta wixii aad u qaban lahaydeen dalkiina iyo dadkiina siyaasiyan iyo milatariyan iyo dhaqaale intaba maanta ayaa laydinka fadhiyaa maanta fadhiga ka kaca ficil yeesha kursima meel dad ku wada hadli karo ama soomaali hadalkeeda aynu ka dhex tegi karo kursima arrinta fadhigana ka kaca qofwalba qofka ku hadlayn dhaqaalaha iyo difaacuba labaduba waa muhiim waxaana horeeya difaaca waxaa horeeya difaaca wax walba xagga difaaca ayaad gacanta midigta saaraysaan gacanta labaadina wax way xagga siyaasadda iyo ka qaybgalka shirarka iyo qoraalada iyo hay-adaha waaweyn aad wax la socodsiisaan waxa weeye ugu dambeyntii waxaan kusoo gunaanadayaa goboladaasi marna kama mid noqon ama lama heshiin ama wax lama dhigan ama wax lama qoran inay ka mid noqdaan maamulka cid kasta oo tagta iyo cid kasta oo loo yeero iyo cid kasta oo la isku dayo in wax la kala furfurana wax ka soconaya ma jiraan lugooyaduna ma fiicna soomaaliya waa ehel waa wada daaqda waa wada degan tahay wax xididii xigaalaba waa tahay in iyaga laysku jilaabo oo laysku laayo oo nabadda cirka loo tuuro looma baahna maamulka hargeysa waxaan ugu baaqaynaa waxaad nabad ku weeyey inaadan ku helayn dagaal haddii cidi wax ku haysan karto caburin wax ku haysan karto cadaadis wax ku haysan karto hargeysa lagu haysan lahaa waxaad shalay diiday cid kaa yeelaysaana ma jirto meeshaa dadka ku waday meesha u socotidna waanu garanaynaa sidaa awgeed war dhanka wanaagsan mar xagga wanaagsan mar oo la noqo ciidamadaada oo carrada nabad u dah oo wixii kale oo aad siyaasad ku qabsan karto iyo wixii kale oo aad maxaan ku radaa dadka aad xukuntid wax ugu qaban kartid oo maamulkaaga waa hore kula galay ugu qabo laakiin meel aan waxba ka tarin iyo laf aad tooban ku haysid iyo gidaar dhagaxa laguma garaaco dadka laguma lugooyo anagu kama mid yihiin maamulkaaga mana ka mid noqonayno laakiin waxaan soo dhaweynaynaa wax kasta oo soomaali ay maxaan ku rahdaa isugu imanayso ama ay danaheeda ku wada qabsanayso fakarka nagu jira waxa weeye kuwa kililka shanaad iyo kuwa maxaan ku rahdaa NFD iyo haddii loo baahdo in la mideeyo soomaali oo dhan isaguna wuxuu doonayaa inuu kala guuguuyo wax yaroo cantayn inuu dhexda ku kala dhufto oo ciddii doontaaba qabsato dalkeeda qaybsato ciddii doontana ka faa'iidaysto meeshuuna ku wadaa halkaa weeye war cid kasta wax garanaysay iska celiya waxan waxaan wuxuu sheega ugu dambeyntii waxaan leeyahay waa idin salaamayaa dhammaantiin gudo iyo dibad waxaan doonayaa inaad fadhiga ka kacdaan dowladda federaalkana waa annagaasoo waa la hadalay idinkuna inaad daba gashaan arrinkaas madaxdeeda sare iyo golayaasheedaba dadka gobolada ku dhaqanna waxaan u rajaynayaa inay gartaan waxa dantooda ku jirto iyo waxa sharafkooda ilaalinaya aad iyo aad baa mahadsantihiin